جون هدي للديدو maxaa sameynaysiin ma dagaalamaysiin waxay la tahay haddaan dagaalamayno haddaba maana nimaaneen halkaas waxaan door bidaynaa shirkaasi inuu ka dhaco magaalada Muqdisho hadduu ka dhici waayaan waxaan ku talagalaynaa meel kale oo dalka ka tirsan waana la ogyahay tabarta dawladdu ay leedahay iyo xayndaabka inta ay ka taliso meel kale oo dalka ka tirsan ayaa lagu qaban doonaa shirkaas markii Muqdisho ay suurtagali weydo maamul goboleed anaga ka nimid dadka oo dhan maamul goboleedka ka yimaadeen meel kale ma cirka laga yimid waa deegaanadeennii meesha rabnaan ku qabsan karnaa kale hadday Muqdisho dhici weydo arrinta kale oo xukuumad cusub waa proposal waa soo jeedin loo arkay xal in xukuumadda hadda shaqeynaysa ay ku fashilantay mandate-kii dadku loo xil saaray oo ay ahayd inay dalka gaarsiiso wixii laga hadlayo dastuurka oo dhammaystiran oo afti loo qaaday dalka amnigiisa oo dalka oo dhan oo la xasiliyo doorashooyin qof iyo cod oo la gaarsiiyo dalka way ku fashilantay marka mandate-keedii way ku fashilantay waxaa la soo jeediyey qofka fashilma ama kooxda fashilanta in lagu bedelo maana dhihin annagu hal ku bedelo laakiin in lagu bedelo dad kale oo mandate-kaas waqtiga yar oo gaaban ka shaqayn kara gaarsiin kara dalka waxyaalahaas la tabayo dhan oo xukuumaddii iyo dawladdii la rabay inay ka shaqeyso waxay ku fashilantay inta yartaay gobolka Banaadir oo laga shaqeynay ayaga ku fashilantay inay amni sugto inay dhaqaalihii dalka in iskuuladii iyo isku socodkii isbitaaladii waxa la maray in la yiraahdo qofka dhaawaca lama qaadi karo oo aamin ambulance oo iska voluntary ah oo qaadi jirta dhaawac in la yiraahdo lama qaaday halkaas horta baashi ay ka rogatay marka xukuumadda hadda jirtaahay way ku fashilantay mandate-kaas ra'iisul wasaaruhu hogaamiyo waxaana dadka lagu xushay waxa la yiri xasilooni dalku ma ku jiro laakiin afar qof oo heshiis waxba tari mayso dalka macna uma fadhido madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu way salaamaan isku qoslaan wasiiradu ra'iisul wasaaraha ay u nacamleeyaan wax ay dalka macna u leedahay iyo faa'iido u leedahay ma jirto wax dalka faa'iido u leh waxa weeye service-kii dawladda looga baahnaa ma la qabtaa amnigii la rabay dalka waxyaalihii ajadihii siyaasiga ah ee waaweynaa oo dastuurkii iyo electionkii ma laga shaqeynayo ma lagu aamini karaa dadka hadda jira marka taas keentay proposalkaas in la soo jeediyo waxaan loo soo jeedinayo waxa weeye madaxweynaha hadda waxay la tahay xukuumadda asaga bedeli kara madaxweynaha proposalkaas loo soo jeediyo talo waa shalay waa kii yiri talaha si talo waa in la siiyaa shalay uu ku dhawaaqay mar walba waa la dhaliilaha yiri talaha la siiyo taladii uu ficnay maanta waa u maleynaysaa inay halkan ka soo baxdo dhaliil tira badan xitaa aan loo jeedin laakiin talooyin wax ku oola oo dad odayaal oo professor oo wasiirre iyo xilal waaweyn dalkan ka soo qabtay hadda xisbiga hogaaminaya dalka u naxaya inay talooyinkaas hadda madaxweynaha siinayaan hadduu madaxweynuhu marka talo u bukay taladii waa tanaa maanta waa loo hayaa waxaan rajaynaynaa inuu u dhagan uglaan doono haddii la yiraahdo ama 60